kulanti wanaagsan saaxiibayaal maxay tahay sababta ay dumarku uga hor duqoobaan ragga qarsoodi ma aha in haweenku ay badanaa da'du durba ka muuqato marka loo eego ragga laakiin hadda make up ayaa jire waa kaftanya daraasado aad u badan ay cilmi baarayaasha ku raadiyaan sababta ay da'da ugu degdegto dumarka inkastoo dhanka kale khubarada qaar ay aaminsan yihiin in cimri dheerida ay ku badan tahay haweenka marka ay timaado ka soo muuqashada da'da la yaab ma aha in sababaha qaar ay ku soo biyo shubanayaan dumarka oo gaar ku ah arrimo ay ka mid yihiin dhalmada iyo caadada joogtada ah oo wax u dhimi kara muuqaalkooda dusha sare liiskuna dabcan intaasi kuma eka oo waxaa jira sababo kale oo ay u soo bandhigeen saynis yahanada caafimaadka tan koowaad ayaa ah dumarku waxay dhibaato kala kulmaan walwalka si ka daran ragga sida uu qabo Dr. Judith Mohrin oo ah khabiir ku xeel dheer arrimahan haweenku waxay u nugul yihiin niyad-jabka gaar ahaan marka ay xaaladaha ku saabsan yihiin culaysyo ama cadaadis dhanka shaqada ah marka isbarbardhig lagu sameeyo ragga iyo haweenka waxaa dhibaatadaas aad ugu sii nugul dumarka qaar ka mid ah hormoonada ayaa ku shaqo leh abuuritaanka walwalka waxayna ku badan yihiin haweenka taas waxay horseedaa in uu degdeg cimri muuqaalku ugu soo muuqdo haweenka oo uu qofku u muuqdo mid da ahaan ka weyn midka lagu qiyaasayo labo haweenka caruurta leh oo u muuqda inay ka da'i weyn yihiin kuwa aan caruurta dhalin daraasad lagu sameeyay jaamacadda George Mason ee dalka Mareykanka ayaa lagu ogaaday in marxaladda uurka iyo muuqaal ahaan haweeneyda u keento da' dheeri ah oo gaaraysa ilaa 11 sano sababta ugu weyn waa in dumarka dhala ay ka yaraadaan unugyada jirka ka difaaca dhaawacyada iyo markaa waxa loo yaqaano chromosomka halka ay aad ugu badan yihiin dumarka aan weligood dhalin saddex maqaarka ragga oo ka adag kan dumarka iyo sidoo kale sababo kale ay ku sheegaan sababta dumarku ay uga hor duqoobaan ragga saynis yahanada arrintaani daraasay saaxiibayaal barnaamijkeennii maantana waa inaga intaay soo dhawaada saaxiibayaal si aad mar walba xogaha xasaasiga ah ee ku saabsan faa'iidada ay leedahay caafimaadka dumarka arrimaha ku takhasusa sheekooyinka kale Soomaalida iyo arrimo kaleba saaxiibayaal bogan falow inoo dhaha mahadsanidin soo